waxa la siiyay dadka reer waqooyi in ay bal siday doorashada ku imanayaan si khaas ah ay iyagu uga soo talooyaan arrintaas waxa ka abuurmay guddi reer waqooyiga qaladka ugu horeeya halkaas uu ka bilaabmay guddidaas waxay u abuurantay guddi ay wadato xukuumadda Soomaaliyeed ayaa abuurmay qaraarkii aan ku ballanay inaanu soo saarno waxa la sameeyay qaar kamida dadka aan ku wada jiro xildhibaanada iyo golaha wasiirada oo u janjeero xisbiga nabad iyo nolol ayaa waraaqa soo diyaar gareeyay waraaqahay soo diyaar gareeyeen mid laga wada tashaday ma ahayn koobi baanu idin siin doonaa oo arki doontaa waraaqdaas waxay u qoran tahay digreto madaxweynaha iyo ciddii la halmaashay noocaas ayuunbaa odhan kartaa markaan eegay markaan u fiirsaday markaan arkay markaan la tashaday ayaa ku qoran xataa gruubka la leeyahay way ka soo shaqeeyeen waxay ka soo shaqeeyeen maaha waayo waxay odhan lahayd af Soomaaligu waxaanu ka soo shaqeynay waxaanu soo garanay waxaanu soo qabanay waxa la doonayaa in la diyaar gareeyo doorasho dalka oo dhan inaanay ka dhicin ama gobolada ama meel kasta annagu doorashadayadii hore ku qabsanay halkan waxa noo diiday dad fara badan oo halkan degan u diidi doona tabta loo diyaar gareeyay in loo afduubo doorashada runtii hadalka waxaa dhameeyay senator Muxudiin oo ah gudoomiyaha arrimaha gudaha federaaleynta dib u heshiisiinta kana mas'uul xiriirka dawladda dhexe iyo maamulada inaan second gareeyo maadaama aanu nahay labadii aqal khudbadii halkan uu ka jeediyay inaan ageysanahay kuna raacsannahay